kulan waana wanaagsan halkan waa Lego TV ku soo dhawaada qodobada wararka yaga xilligan ku wadi ugu door karoon faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya fatahaad mar kale u geystay webiga Shabeelle bartamaha ka mara degmada Afgooye wafuud ku sii qulqulaysa magaalada Dhuusamareeb dowladda Soomaaliya oo gaadiid ku wareejisay maamulka Galmudug madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo kulamo ku yeeshay Dhuusamareeb xiriirlaalii hore qaranka oo sheegay in la siyaasadeeyay dhisida golaha garsoorka qodobada wararka yaga dibaddana waxa ugu door karoon madaxweyne Ruuxaani oo sheegay in 25 milyan oo reer Iiraan uu ku dhacay COVID-19 u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwa kale oo idin soo jeediyo haddii rabweynaha laga helo ismaqal haboon waa 19 July sanadka 2020 xad qodobadii oo aad maqasheen ku soo dhawaada oo faahfaahsan aan ku bilownay faahfaahino dheeraad ah ka soo baxaya fatahaad mar kale uu ka geystay webiga Shabeelle degmada Afgooye ee gobolkaasi halkani waa suuqa yar ee Boondirista ee dhanka waqooyi degmada Afgooye socdaal kooban oo aan ku tagnay degmada Afgooye ayaa waxa meelaha qaar ka jiray hakad ganacsi iyo barakac xooggan oo ay sameynayaan dadkii ku nool xaafadaha 22 Oktoobar la isku yiraahdo halka dharkaysan waa meel kamid ah goobihii ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle gaar ahaan Boondirista xaafadaha kula dhow qaar ka mid ah dadka oo aan kula kulannay ay halkaas ayaa Lego TV ugu xog warramay dhibaatada halkan ka taagan ayagoo oo dalbaday in gargaar bani aadamnimo ay u baahan yihiin dadkani waa kuwan qaar ka mid ah bulshada oo aan kula kulannay Afgooye gaar ahaan halka fatahaadda ay saameysay xaalad ilaahay keenay waxay u baahan tahay in la sabro la geeda khayrkeeda anaga waxaan ugu gudnama la horta waxaan ilaahay baa jecel waxaana dadkan marka dhahay dadka iyaga kasbada iyo waxaas ma jiro waxaan ilaahay xilligeeda ugu talagalay marka dadka dhahay waxaan leeyahay Allah soo toosiyo dadka walaalahoodana Allah meel u sahlo isku soo wada duubo guud ahaan gobolka Shabeelle hoose gaar ahaan degmada Afgooye ayaa iminka waxa ka tagan xaalada loo sahla fatahaadan ayaa ka duwan fatahaadii hore ee degmada Afgooye uu ka geysan jiray webiga Shabeelle bartamaha ka mara degmada Afgooye waa hagaag markana xiriirlaalii hore qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in markaasi la siyaasadeeyay dhisida golaha garsoorka dalka Axmed Cali Daahir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dad badan ay dalka joogaan kuwaasi oo ka cagajiidaya dhisida golaha garsoorka oo markaasi si cadaalad ah u hanaqaada waxa uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in dib lagu noqdo dhisida golaha garsoorka ee dalka